kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada toddobaadka iyo barnaamijkeennii milicsiga siyaasiga toddobaadkan iyo barnaamijkeenna milicsiga siyaasiga waxaa noogu martaya sheekh almis yaxye xaaji ibraahim oo ah khadiibka masaajidka ibraahim dheere aad iyo aad u mahadsan yahay sheekh almis waxaan jecelahay bal inaad horta inkastoo maadada waxyaabo badan aad baratay bal taariikhdaada iyo yaro kooban جزاك الله خير بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وصحبه وسلم قبل ما كنا شيء كدبنا قاهرة أيام تجي جامعة الأزهر أيام سكول كي نحقي سكندري جامعة دي بقى كقاعتي شريعة أيام كنت تخصصي كدبنا وحنور نلك فنلند بان أفرت وصلنا إمام يا خطيب مساجد الرابطة الإسلام كي هلسنكي إمام كاها دورة وصلنا كدبنا هرجيسة أيام كسر نقضي جامعة دا IHU ayaan aasaasay gudoomiyana ka ahaa haatana waxa aan joogaa masaajidka Ibraahim Dheere oo khudbada jimcaha ka akhriya duudu sharciyada ka jeediya waxaagaad buu mahadsan yahay bal waxa ka bilaabantay waxaad ka mid ahayd ragga khubarada marka waxa ka bilaabmay geeska Afrika isbedel xawaare xoog leh ku socda oo ra'iisul wasaaraha Ethiopia bay uu isagu horseed ka yahay bal hadda maxaad nooga waramay tiyaarka ama se xawaaraha inta leeg markuna ku socday شكرا الله خير فيصل وارنتا waxa inagu soo ziyaaday afartii bilood ee ugu dambeeyay mantiqadan aynu degannahay geeska Afrika isbedel laxaad leh bal waxa uu karaa isbedel istiraatiiji ah ayaa inagu soo ziyaaday isbedelkaasi waxa hor kacaya ra'iisul wasaaraha cusub ee dawladda Ethiopia oo afartii bilood ee ugu dambeeyay si xawaare ah dhan walbana leh keenay isbedelkaasi ha noqdo dhan dhaqaale dhan siyaasadeed dhan ijtimaaciya oo social ha noqdo dhankii xataa political siyaasadii ha noqdo geopolitical xataa ha galo isbedelkaasi markaa kow waxaa ka ah saddexdii sano ee ugu dambeeyay kacdoonkii ay qowmiyadda Oromadu ay ka kaceen dhulkooda ee ay doonayeen inay xorriyad ku helaan say sheegayeen ay doonayeen isbedel in uu dhaco arrinkan ayuu maxaytoole ayuu curiyay Somaliland saameyn buu ku leeyahay Soomaaliya saameyn buu ku leeyahay Djibouti saameyn buu ku geeska Afrika idin saameyn aynu ka wada hadli doono ayuu leeyahay ma isbedelkaasi ma isbedel gudaha ka yimid oo doonitaan shacbi ku yimid ba isbedel dibadda laga hagayo oo dawlado waaweyn ay dibadda ay ka hagayaan biya intaba waa dood taayir isweydiino laakiin hubaal waxa ah afar bilood ka hor sidoo ahaa geeska Afrika inaanu maanta inaanu ahayn waxaag marka hadaynu kala qaadno sidaad sheegtay ma waxaynu oran karaa waxyaabihii gudahan ka socday ayaa keenaya mise waxaynu oran karaa ahmiyad kale oo geopolitical markaynu eegno dhinacii dhaqaalaha ah ayaa quwado kale ay meesha ka soo galeen isma diidayso marka koowaad waxaan aaminsanahay dulmigii meesha ka jiray ee ay qowmiyadaha qaarkood ay sheeganayeen ee tabanayeen cadaadis dhaqaaleed cadaadis aqoon la'aan cadaadis hoggaanka wadanka inay si dhab ah uga mid noqdaan ee dad gaar ah u xidhnayd inuu dareenkaasi inuu jiray oo uu dhaqaaqay oo dadkii si xawaa xoog leh ay dadka ay u soo baxeen taas arin la inkiri karayo ma aha laakiin isbedelkan degdega ah ee afarta bilood ee ka dambeeyay tallaabooyinka waaweyn ee islaha malaha dhowr sano u baahnayd inuu baxaytole uu qaato waxaan leeyahay meel fog ayaa looga haadinayaa ama laga hagayaa ama laga ilaalinayaa marka isbedelkii gudaha waa sax xaqoodii dadkii waa in la dad badan baa u dhintay dad badan baa loo xiray dad badan baa loo cadaabay isbedelkii shucuubtu ay doonayeen wuxuu inay ku muujiyaan ma doonayaan xaqiro dooritaankii dadka laakiin waxaan leeyahay caadadu waxay ina bartay iyo taariikhduba isbedeladu inaanay bila ku imanin ee waqti dheer inay ay u baahan yihiin marka laba dawladood waaweyn afka lagama dhowrayo China oo wadanka soo galay oo doonaya inuu Afrika xoog weyn xagga dhaqaalaha inuu ku lahaado iyo Mareykanka oo labadooduba aanay kala qarinin maanta ay isku bareereen oo sheegteen inuu dagaal dhaqaale ka dhaxeeyo oo maanta arrin qarsoon ma ahayn walba uu ku dhawaaqay labadaasiba door bay ku leeyihiin
isbedelka mantiqadeena ka dhacaya saameynna way ku leeyihiin waxa kaleeto matalan dhinacii heshiiskan Ethiopia iyo Eritrea sidaas sheegtay wuxuu ahaa heshiisyadii waqtiyada dheer ku dhamaanayay haddana dadka siyaasadda oo daraasada siyaasiyiintu waxay dhahaan haddii qof xawaaro dheer lagu socdo siyaasaddu waxay u baahan tahay in ayaro marra ayna xidaar gaadhay soo dhacdo marra laakiin waxa taasoo kale sideed u arki kartaa maanta waanu joogaaba matalan ra'iisul wasaaruhu uu tagay madaxweynaha xadan u imanaya horta colaad dantay iyo dagaal afgarad ka dhashay afgarad ka dhashay waa soo dhaweynayna oo mabda diinta islaamka oo dhan baa ah wixii aad wada hadal ku wada dhamay kartaan yaa gacan hadal yaa lagu dhamay wixii dhiig lagu baajinayana waa mabda islaamiyana wey waana mabda insaaniya marka taasi waa sax laakiin waxay su-aasha isweydiin waxa weeye sidii looga bartay adduunka looga bartay khilaafaadka iminka 100 sano waxay haystay Arbanka iyo Turkida dagaalkii labaad ee adduunka dagaalkii koowaad ee adduunka baa lagu eedeeyaa Turkidu inay Arban badan xasuuqeen 100 sano ay qaadatay 4 sano 5 sano ka hor inay heshiiyaan 100 sano ayay soo socotay maalinba iyar la saarayay maalinba wax la saarayay marka dagaalka intaa leeg iyo colaada intaa leeg ee jirtay marxaatiga oo heleen ku ababnay ku kacnay in la yiraahdo uu dhowr maalmood gudahood ayay ku soo afjarantay waxay adkaynaysaa inagoo soo dhaweeyay heshiiska waxay ila tahay waxay adkaynaysaa quwo khaariji inay riixayso quwo ka baxsan regionkani inay aray ka dhanka inay u riixayso dhacdo waxaag in guud ahaan markaan ku hadalno ma oran karaa dawladda Carbeed muuqaal kasta ha muujiyaan qudhoodu ayaa mandaqada loo adeegsanaya qudhoodu in u fara dhuuban ma oran karaa dawladaha Carabtu isku wada tarbaata dawladaha Carabtu badankoodu ama intooda badaniba baata go'aankooda siyaasadeed gacantooda kuma jiro waa dawlado iyaga laftooda badankooda maamuladooda dibadaha ku xiran marka waxa Carabiga waxa la yiraahdaa ad-dawla al-wadhiifiyya wadaa'if bay gudayaan ama wadaa'if dhaqaalaha noqdaan wadaa'if siyaasadeed ha noqdaan haddii doonto wadaa'if gacan ka hadala ha noqdaan marka qaarkood marka dawladaha waaweyn ku hardibaya inay soo dirtaan dawlado aan laga shakisanayn oo la oranayo muslimiin baa idin timid waa Carab baa timid ay soo dirtaan ay fulinayaan ajandooyin hidan ah qarsoon ay fulinayaan isla xilligaana lacagahoodii loo isticmaalay wax badan in iyaguna ay ku furfuraan iyaguna dara kale iyagina dara dhaqaale iyaga laftooda maxay toor kale waa suurtagal khaasatan marka imika Carabti ay u kala jabtay intaasoo bixwar intaasoo baalan ay kala noqdeen baat oo Turkidii Qatar Iiraan iyo Ruush baa dhadhax markay kale waxaad arkaysaa Sacuudigii Imaaraadkii Masar Kuwait Israa'iil oo iyagina maxay toolo dhan ah intaasoo way nagu xeeran yihiin way joogaan isku badaqada deganahay bay degan yihiin oo waa intaasoo masaalix oo kala duwan intuba saameyn bay ay nagu leeyihiin inaga waxaag haddii aad eegto mandaqada matalan Eritrea iyo Ethiopia heshiiskoodaasi dekada casab sidoo uu saameyn karaa matalan dekada Berbera Djibouti Muqdisho meelaha sidoo saameyn sidoo ugu yeelan karaa horta waxaan loo ordayaaba waa 100 milyan bay haytay asalka madrubaaka waxa loo tumayay dekadahani waxa loo furayay culayska ugu badan 80% wuxuu ahaa 100 milyan ee halka ku xiran sidee loogu geyn lahaa baahiyahooda sidee loogu geyn lahaa dekaduhuna ay u cabir bilahaayeen iyaguna ay bidaaca ay u heli lahaayeen marka haday helaan marka maanta meeltaadina dekadaagina ka dhow heshiisyada ay ka suurta galaan waa hubaan 100% in dhaawac dhaqaale soo gaarayo al aqal is dhimayso wixii adiga ku soo gaari lahaa gorgortankaaguna uu yaraani ilaa awal waxaad lahayd xagga igu baad kalideedu baa shaqaysa ama sababaha ay ka dheefsataabo awalha laakiin dinkii sababahaaga ku xidhnaa hadduu 10 sababo kale marka istaraatiijiyada eegto casab iyo matalan dhinaca wadooyin baa wada jiro highway-yadii iyo
حقي تسهيلاتك كوين ويقصع كوين ويقصع عشان كبجرو إلى ويقص ويخوص بدقيسو ولما هدي أنو نكا وجوين بعد هدو دورة هدو فكرة فكرتك ورا من هذا وأبك جورة يا من عصب بارو جورة يا من اللي واحد أركنا الدولة إنه جارنا هاي أو شيء سوق لسي وضكي لكن حتى ما تبغى كذي هذا بعرضه ما بس يجوجي واحد دونه بيلا كل يجوجو وبعيدا كيسي وحيسيبه وكلامها حضور ررتو قف ما اوبشن هاي صورة قلب يعني هاي اوبشن صورة قلب سجل لفتيس بركاي وبركنا علينا هاي خريطة دي منطقة دي ما دب لودجيا أي دب لودجيا بركاد وعي قلتي هي ثقافة دي وين أوغانا هالكيبين وكجلي كرنا ويا إنك السبدل كسيستمي نص عامين waxaad moodaa dad badan oo matalan marka Soomaaliya loo eego iyo Soomaaliland intaba sidoo saameynaya laba option ba waa suurtagal say la tahay inuu dhulku isku wada furmo oo nabadu faafto oo dekadu wada shaqeeyaan oo tareenadii la isku furo oo shucuub dhaqdhaqaaqoodu uu furmo oo xorriye siyaasad la helo xorriye dhaqaale la helo هذا حاجة أقول نقاضو ده بوزيتيف هو ده كده أجينا وعبر بيان أدينا شقالة هاجيبا بيركستا كنا عيا كنا عسيا أجيبا فافيا سجاش كان بليب بوحي أتكهلي كرتو بمعنى كبع نقالة يدنا بتجليه ده منطقتنا إنه جوجنا كنا على ضبة إنه يوجد جرته بلاي إنه يوجد جرته وهذا حاجة هذا نقاضو وواحد وياه كله وضنا دي إيست يوروبيا markii uu Sovietku uu burburay si nabadgelyo abay dhaqaalahoodii iyo siyaasadoodiiba u dhaqaaqday baadna wadana cabira oo Croatia maanta kubadii bada suurtagal inay tahay inay bash barasala Czechoslovakia kala gooday laakiin haddana dhaqaalahoodu meel durugsan buu maraya Poland oo buubig ah xaqii baxay dhaqaalaha laana waxay heleen stability bay heleen way xaqii siyaasadda ka dageen mana dhicin lawlan bulshadeedo isku dhacay marka haddii biga xaggan aynu dhaqaaqnay iyo la doonayo in loo dhaqaajiyo mantiqada oo dhan ay saa smoothly hab nabadgelyo ah haddii u dhaqaaqdo waxaan isleeyahay isbedelka iyo kobaca dhaqaale waxba inaga soo gaaraya haddii laakiin optionku dhanka kale u dhaco ka war ila dhan kasta waa laga eegaayo nin saxaabiya wuxuu nabiga sallam saxaabadu nabiga waxay weydiin jirtay khayrka aniguna sharku baa weydiin jiray oo maxaa ku kalifay baa leeyahay sharko wuxuu khayr hadaan helo waa khayr ii ziyaadaye anigu sharkaan islaha ka foojigno xagga positive ka inuu ka sheekeynay quruxda badan waa muraayadii greenka bal muraayad madow baxdana haduu arikan shaqay waaye ka war dawladihii qotada dheeraayada inta badan ka soo tali jirtay meeshan haday soo baraarugto hadiiba la diido process ka bigiisa Iraq 2003 baa la qabsaday baraka baa qasab ku qabsaday wax allaala wixii wadanka joogo dhan madaxa ay isla galeen shiica iyo sunna madaxa isla galay arab iyo kurdi ayaa isla galay waa kuwa maanta 15 sano ka kici karina haddaynu nahno mantiqada xaq dhanka kale u dhaqaaqday oo qowmiyaadkii deganaa ay diidaan process gabiisaba oo hub iyo dagaal iyo mashaakil ay bilaabaan iyadoo waxa suurtagal ah inay sidaynu tii hore dheeri positive ku ka faa'iideynaa dhibaatadaas inay soo gaadho inay saabayso iyadoo waa shay jira weeyaan وهاج حلقنا وكلا مثلا واحد شراء مثلا Soomaaliland oo kale sidee bay tiyaar kan ay uga faa'iideysanaysaa ama isbedeladan iyadoo hadii xilligan kala raadsan tahay siyaasadeedii dadka aanay horta koo waxa asal ah marka wax iska caabinaysid horta adigu waa inaanay kala furfureen adigu haddii adigu aad kala furfuran tahay daldaloolo fara badan laga soo galaya horta adigu xid waxa soo idin doodihii mujtamacaaga xid meelaha dagaal ka socdaan oo dabi wada hadalka siyaasadeed adkee axzaabta iyo dawladdu waa inay u arkaan inay marxalo adagi in la marayo yooyota keedii hoose aynu xariifiinta ku ahayn inaanay maanta sii shaqaynaynin kor loo kaco waxa laga hadlayaa jiritaan la'aan dad ka badan iyo biyo ka badan way ku hafiyaan marka inaynu kor u qaadno u fuqeena siyaasadeed u fuqeena wada hadal bulshadeed culimadu siyaasiyiintu tujaartu dawladdu intuba wixii laga hadli jiray in aribka laga hadal
in kor loo kaco la yiraahdo haddii ay nabadgelyadaasi hirgasho sayn uga faa'iidaa wadooyinkeedii ganacsigeedii tijaaradeedii dekedeedii sidee u dadajinaa inay inta ka ballaarato si ay uga qayb qaadato horumarkaas wata haddii kale dhibaato ilaahay kaba dhigay ilaa qadar allah basha musiibada ka dhacdo oo la diidaba process-kani sidee baan iskaga caabi karnaa inagoo kala daadsan iska caabi karnaa inagoo reera ah iska caabi karnaa bise waxa iska caabi karnaa inagoo iswadana way wada hadallada haddaynu eegno Soomaaliya iyo Somaliland waxa weeyaan way istaageen arrimahaasi nataa'ij xun bay keeneen consequence مثلا dhinacii siyaasadda ah oo waxyaabo badan oo matalan ayaa jira sideed u aragtaa bal horta waxaan isleeyahay wada hadalladii hore la furay haasaaway ahaydee wada hadalla ma ahayd labo wax baa la isku haya waanu go'nay intaanu shalay idiin nimid baanu noqonnay iyo ma kala tegayno qodobka aan hayni meeshii maxay tuli qodobkaana lamana furin la isku mara soo hadal qaadin xataa faylalkii la isla tegay kuma jirin laakiin wuxuu ahaa waxaad moodaa show adduunka la tusayo inaynu maxay tolay inaynu wada hadlayno inay ahayd waxayna tahay anigu boogta haddaan si xaqiiqi ah loo taabanin oo aan si dhab ah loo wada hadalkaas inaanu macna inaanu keenaynin wada hadalkana waxaa ka horeeya waxa la yiraahdo xusnu nawaaya niyad wanaag haddii niyad wanaag la waayo marka horeba oo ay jiraan hoosta in la iska hardinayo haddii ay jiraan oo qof walba ka kala doonayo inuu caburiyo ama uu doonayo gacan bir ah inuu maxay tolo ku qabto korna waynu ka wada hadalnaa hoostana waan ka hayaa ma shaqaynayso waxay la tahay marka hore in xusni niyya si wanaagsan oo niyad wanaagsan la istuso kadibna uu bilaabmo laakiin waxa laga wada hadlaya ay noqdaan qodobyo xaqiiqi ah qodobyo xaqiiqi oo taabanaya musiibada xaqiiqada ee jirta nacam وهاجاج waxaa jirta dhawaan waxaa jirtay culimo aad u fara badan oo loo kala harin ayaa matalan tagtay sidii arinta loo soo afjari lahaa culimadu waxay ka mid tahay amba masaajidka aad kaga hadashay had iyo jeer sidii meel kasto matalan muslimiin isku dilayaba marka hore bal khilaafka loo jari lahaa marka dambana marka bal maxaa baaqahe maadaama aad maanta istuudiyaha جزاك الله خير maanta nagu soo booqatay bal hadda qaybtaan waxaan jeclaan lahayn inaad dhammaan ummadda Soomaaliyeed wixii wala ahad u ducayso khilaafkaana bal labada kooxood baad eray weyn aad ka tiraahdo maanta جزاك الله خير الله كسيه وقضب ugu bihibsan weeyaan ilaahayna subhanahu wa ta'ala quraankiisa waa uu nagu amray haday muslimiin islayso heshiisiye oo dhaxgala نبينا صلى الله عليه وسلم آب إنه جبوري أحاديث فربض وإن الله ورولاليه إنه ما كيسقطان هاي سكون دعواننا كل إحدى أيون الله مشكلة دا هي مصيبة ده هالكعكة تاجر عيلفوي خطبة مساج كانوا وكجا هذا الله مات الحمد لله رب العالمين دولة دي إنه يصير بقله إنه وأبب بحسي الدار جرت كذي أما سياسيين هالنقطان أما قضيان هالنقطان أما علماء هالنقطان كو باقو كواد waxaan u dirayaa dadka loo tagay ee meesha isku haya waxaan leeyahay ilaahay subhanahu wa ta'ala haydi karaabeeye dadka idii yimid idinku karaabeeya qalbi wanaagsan ku qaabila niyad wanaagsan ku qaabila waxaad kala tabanaysaana si hufad oo aydan waxba ka tagaydin illa wixii la qariyaa uu ku qarsadaaye xaqiiqada jirtana gudiga idii timid iyo wafdiga idii yimid u soo bandhiga qodobka labaad waxaan leeyahay wafdigii tagay ilaahay kaalmaysta subxaanahu wa tacaala hadalkana ha ag istaagina wixii idiin soo baxa marka la idiin sheego ha ag istaagina idinkoo ilaahay tala saaranaya bareero oo idinkuna xagga runta ka sheega in yuriida islaaxan yuwafiq illaahu baynahuma qodob saddexaadna waxaan leeyahay dowladda oo leeyahay iyaduna sidaa aad u dirteen u garab taagnaada oo wax allaala wixii aad isleedihiin shaqada wafdigaasi aad u dirteen carqalad buu ka yahay idinkuna ka hor qaada oo ka ilaaliya ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxaan uga rajaynayaa inuu wagaag intaad ka bixin waxaan leenahay matalan culimadii baa maanta culimadu way ka miisaan beelto waa dadkii waa wakiiladii ilaahay marka bal labada qolo maanta culimadaasi maanta tagtay oo aan ninna u maqnayn sidii ay bal u adeeci lahaayeen
قلوا ذا بحاض كوعد كين لهيد horta ilaahay cidda wakiilka ma aha wadaadadu diintay barteen ilaahay wakiilka taasi waa dadka la aaminsan inagu waxaynu aaminsanahay dadkaasi inay diinta ilaahay barteen dadkana diinta u sheegaan laakiin ilaahay cidda wakiil ilaahay cidda wakiil uu subhanahu wa ta'ala ambiyada ilaahay waxaan leeyahay markaa dadkii loo tagay ee meesha isku haysta ee turxaad dhexdooda ay taale wadankii oo dhan bay yimid waliba labeetii ayaa maxay ayaa idin timid bashar baa la yahay waa la isqaban bashar baa la yahay waa la isqabaniye dadkaasi maanta yaana idinku soo hogoobi baa leeyahay haro uga kicina fadhi qaabila oo saad u soo dhaweyseen waanu aragnay qulubtiidana u fura baaqa ay sidaana qaata qodob saddexaad haddaa ku daro mar haddii meel la isugu yimaado qof walba isagoo habi ah meesha kama kace kulli cid u baa lagu ciiri qof wuxuu mutabani qofku hana la isku tanaazulo qofka mu'minka hadduu yiraahdo anigu xuquuqdeydii oo kaamil ah aan helo ka kalena uu yiraahdo xuquuqdeydii oo kaamil ah aniguna bixinta aan helo dee halkaa bixinta waxba ka soo bixi waxa la isku tanaazula is astura waxna isku dhigta oo baraha wax dhici doonaan waa dhigi sii dhigtay taydeydii had noqoto dhaqankeedii Soomaaliga hana meesha yaa laga kaxayrin culimada aanu wafdiga dawladdu ay jirto culimadu aad u kalsoon ugu qabna weeyaan biidillah qaar fara badan oo ku jiraan ay garanayaan hawlaha sida loo kala tuuri karo oo shaqo xirfad u leh laakiin waxa jecel biidillah tabaaraka inaanay soo degdegin inaanu waqtiga ciriiri aanu ku gelin intuu waqtigaas u qaadan karo inay dul fadhiyaan dadka culays ay saaraan ilaahayna hala ku asturo biidillah tabaaraka ta'ala وهجاج toddobaadkan iyo barnaamijkeennii milicsiga siyaasiga intaasi ayaanu kusoo gabagabayna taliya intaanu ku kulmi doono waxaa nala joogay waa sheekh almis yaxye xaaji ibraahim waa khadiibka masaajidka weyn ee ibraahim dheere aad iyo aad ayuu mahadsan yahay jazakallahu khayr shukran jaziila